warbixin ku saabsan filimka 2018 wax masdagaar ah leh. Vijay Thalapathy oo filimkiisa Leo America si weyn loogu sugaya maxaa sababay? Nawazuddin Siddiqui oo filimkiisa burburka bilowday maxaa sababay asagana? Filimka Allu Arjun Pushpa 2 iyo filimka Shah Rukh Khan Danki maxaa ka dhaxeeya labadooda? Filimka Jawan oo sameeyay Shah Rukh Khan iyo Allu Arjun maxaa isku keenay? sidoo kale filimkii Don 3 yaa sameynaya Shah Rukh Khan mise Ranbir warbixino kooban aan idin hayaa haddii aad ka soo YouTube channelkayga fadlan subscribe iyo soo saar adigoo mahadsan. haddii aan gudo galna barnaamijkeena filimka lagu magacaabo 2018 ee Malayalamka ayaa noqday blockbuster waliba gobolka Kerala ka noqday midaan caadi ahayn. Filimkan oo sii socda ilaa hadda daawashadiisa waxaan la leeyahay ma aha mid taakanayo. laakiin filimkan markii lagu turjumay luqadda Hindiga ilaa iyo hadda ganacsi badan kama sameeyay dhanka luqadaasi balse wuxuu blockbuster all time ka noqday dhanka Malayalam, Kerala iyo suuqyada caalamka oo dhan. filimkan xiisaha badan muddo 22 habeen ah iyo wuxuu ku gaaray 150 karoor in ka badan. filimkan wuxuu noqday filim caalami ah waliba filimka ay leeyihiin Malayalam filimkii ugu horeeyay lacagta salaga soo xareeyo. wuxuu ka lacag badiyay filimkii uu sameeyay Mohanlal actorka caanka ee ku faanaan reer Malayalam ee Bully Murgam lagu magacaabayay. filimkaasi wuxuu keenay 138 karoor. filimkana caalamka xaqiisa lacag fara badan ayuu ka soo xareeyay markii waliba lagu daawado hal luqad oo kaliya. wuxuu hadda rabaa in uu gaaro Malayalam gudaheeda inuu noqdo filimka ugu lacagta badan kaasoo hore u ahaa Bully Murgam uu sameeyay Mohanlal. Bully Murgam Malayalam dhexdeeda wuxuu ka keenay 78 karoor. kan laakiin wuxuu ku lacag badan yahay caalamka Malayalam gudaheeda wiil kama gaarin 78 karoor. dhanka kale shirkadda caanka ee 7 Screen Studio ee maalgelinaysa filimka Vijay ee Leo lagu magacaabo shirkaddan waxay sheegtay filimkani inay waqooyiga America uu kareen doonto 1500 oo tiyaatar. wuxuu noqon doonaa filimka Hindi ee leeyahay midkii ugu horeeyay ee tiyaatarada ugu badan ee caalamka la saaro. filimkan Leo Vijay wuxuu ka yahay gangster aad u awood badan waxaan directorka Mukesh Khanna dalkiisa aad ayuu u badan yahay waqooyiga America si aad ayaa lagu soo dalbanaya filimkani. filimkani ma dhow xilliga la daaban doono waa 20 Oktoobar ama 19 ka dabeeqada sanadkani. 7 Screen Studio shirkadda loo magacaabo waxay shaaca ka qaaday qolooyinka cajaladaha iibiya filimkani xiisaha badan ay ku kulmi doonaan Vijay Thalapathy iyo Sindeeduud inay u carbooneen tiyaatarada ugu caansan waqooyiga America 1500 oo tiyaatar oo ah kuwa ugu waaweyn ee laga daawado filimada. filimkani si xasaasi ay u wada sugayaan. dhanka kale filimka isbuucan tiyaatarada la saaray ee Nawazuddin Siddiqui atooraha ka yahay filimkaas oo loo magacaabo Jogira Sarara ayaa tiyaatarada la saaray laakiin nasiib darro si aan fiicnin ayuu ku bilowday. wuxuuna soo xariir lacag aad u liidata taasoo ah 25 lag ilaa 30 lag sida shaaca ka qaadaysa shirkadda box office ee Hindi laga leeyahay. dadka qaar waxay leeyihiin Nawazuddin Siddiqui filimkiisa waxa uu fiicnaan been oo iska saaro OTT-ga tiyaatarada aan la saarin. laakiin qolooyinka OTT-ga naftirkooda sida Netflix iyo Amazon waxay bilaabeen filimka inay ku fiiraan marka hore tiyaatarka haddii ay ka helaan dadka tiyaatarka daawado lacag fiican ay ku iibsanayaan haddii laga heli waayana lacag raqiis ay ku iibsanayaan. laba joora filimkani khasaare ayuu ku sugan yahay. waxaan ognahay xilliga corona oo jiray tiyaatarada laga cabsan jiray qolada OTT-ga filmaanta la aqal inay ku iibsan jireen maadaama ayaga oo kaliya ay baraayoon jireen filimka xumaada ama fiicnaado la aqal ay leegsan jireen markastaba. maadaama corona oo dhamaaday hadda OTT-ga waxay leeyihiin filimka lagu baraayo tiyaatarka kadibna waan ka gaadanaynaa dadka ay fiican u daawadaan haddii laga heli waayo lacag raqiis aan ka siinayna. haddana Nawazuddin Siddiqui waxa leeyahay maadaama uu ku salaabtay tiyaatarada burbur ayuu ka dheefay soo dhibantiisana waa ku khasaaray. sheekooyin kale aan soo qaadan karno waxaa ka mid ah Allu Arjun ayaa diyaar u ah asagoo wata filimkiisii Pushpa 2 in uu la dagaalamo actorka caanka ah ee Shah Rukh Khan asagoo wata filimkiisii Danki. labadan filim waxaa la sheegay in isku dhici doonaan isbuuca Christmaska. tiyaatarada hal maalin ayaa la wada saari doonaa inkastoo weli filimka Pushpa 2 duubis ay ku socoto laakiin Allu Arjun oo si adag u duubay si oo san u dhaafan toddobaadka Christmaska. Team Pushpa dalkooda way si laba jibaarayaan heer waxay gaarsiin rabaan filimkaasi Danki ee ay ka hormaraan ama tiyaatarka soo waqti la saaro. filimka Dankina 65% waa la duubay. Rajkumar iyo Shah Rukh Khan way ku heshiiyeen 22 December in la saari doono. sidoo kale Pushpa wuxuu ku tashanayaa isla xilligaas in la saari doono tiyaatarada labada filim ay isqaban doonaan. inkastoo warbaahinta koonfur India ay leeyihiin Pushpa wuxuu soo bixi doonaa sanadka 2024 hase ahaatee soo kumar iyo Allu Arjun waxay diyaarinayaan filimkan in ciyaar la daawado oo ka soo hormar waqtiga ay sheegayaan warbaahinta koonfur India si filimkaas oo ugu beegmo filimka la midka ah ee Danki oo sameynaya Shah Rukh Khan. dhinaca kale tiimka Allu Arjun waxay beeneen gaba ahaanba superstarkan inuu ka soo muuqday filimkii uu hogaaminayay Shah Rukh Khan lagu magacaabo Jawan inuu ka soo muuqday waliba muuqaal marti ku ah waa ay diidan mana ka soo muuqanay dheen ugu dambeyntii been ayaa laga sheegayaa ninka loo magacaabo Allu Arjun. dadka Allu Arjun oo qaabishan xayisiinta iyo baraha bulshada waxay sheegeen inuusan marnaba ka soo muuqanin filimka Jawan Allu Arjun taasna ay tahay propaganda iyo been.
sidoo kale weli waxaan kusii guda jirnaa arrimihii shaaruuqan filimka Don 3 ayaa la isku haystaa naftarkiisa qofkii sameyn lahaa waxaa la shaaruuqan ma sameynayo sidoo kale Ranveer Singh ma sameynayo farxaan akhtar ayaa dhahay aniga ayaa go'aamin doona filimkaasi ciddii ii sameynayso welina warbixintiisa waa la sugayaa filimkaasi waad mahadsantihiin barnaamijka intaa kusoo gabagabeynaya haddii aad ka cusubtahay channelka subscribe iyo saar adigoo mahadsan 100% mahadsanidin